إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan doonayaa marka hore bal inaan ka hadlo qaraxii dhacay baabuurkii loo adeegsaday halkii laga qaaday iyo sidoo xaalku yahay iyo xogta aniga aan hayo wax kasta Ilaahay baa og laakiin baarisan sameeyay baarista ayaan doonayaa shacabka Soomaaliyeed in la wadaago baabuurkaas iyo 12 baabuur kale oo 13 oo ku ahaa waxa laga iibiyay Talyaaniga laga qaaday dalka Talyaaniga laga iibiyay dowladda Talyaaniga baabuurta ciidamada baabuur ciidan buu ahaa baabuurta ciidamada in la qaado Soomaaliya loo qaado way mamnuucdo sharciga soo saartay sida darteed lacag ay xamar laga soo diray dad la yaqaan oo ganacsada ah ayaa lacag xamar ka soo dirsaday lacagta ruud badan bay martay laakiin ugu dambeyn waxa ma taqaan lacagta lagu shubay oo loo dhiibay nin xawaalada ka shaqeeya xasan lilaahdo reew xasan fahad yaasiin isku ama ilmaadarihiin ama adeer waa xasaas adiga oo Talyaaniga diga Faransa degan ayaa lacagta lagu wixii Allah waclam Ilaah baa naga og dadkan lacagsan waxa laga yaabaa inay dad ay darahooda fiirsan ganacsigooda fiirsanaya inay yihiin waa laga yaabaa in dad arinta kiiska ku lug leh ay yihiin waa laga yaabaa marka aniga ma judge gareynayo ma dhigi karo hebel oo ku jira laakiin xogtan haya saxda ayaan idin sheegayaa arinta dawladda Talyaaniga way ogaatay markuu ninka lacagta lagu wixii ninka ragga lacagta u dhiibay 13 baabuur ayaa la soo gaday baabuurta si spare party loo furfuray kadibna Belgiumka la keenay dekad Belgiumka laga dhoofiyay Antwerp laga dhoofiyay saas Soomaaliya ku tagtay Soomaaliya markay tagtay waxa la sameeyay baabuurta 13 ka ahayd qof kastaba mid loola baxay baabuurta waxyaabaha aan ka shakiyay kamid tahay hal shirkado ganacsi ma qaadan baabuurti la wada lahaa ee la soo wada iibiyay waxa loola baxay hal baawar loola baxay kadib haddana notaris ayaa la geeyay hada baawurkan qarax sameeyo kala notaris timacada la geeyay oo lagu kala wareegsaday notaris notayo ku taala muqsho la timacada ayaa la geeyay lagu kala wareegsaday baawurkan dekada markii laga soo bixinayay baabuur kastaba qof aad damiintay waa baawur ciidan kadib baawurkii waa la waday ma qofka waxa fahmi kara arrimahaas qofka muqaabaraadka ama sirdoonka ama baarista barta ayaa fahmi kara waxa weeye markii fal la sameeyo waxa loo sameeyaa ruudad badan raatirasho badan ayaa la sameeyaa inaha meelo badan ayaa la soo marsiiyaa oo lagu raatirtaa marka baawurka dhowr jeer baa si iibiyay sida ka muuqato raa'isa kadibna baawurkii waa la waday oo afgooya la geeyay oo beer ku taal afgooyay ayaa lagu soo raray explosive kan halista marka hore Soomaalidu waxaan leeyahay xabarta aamina qofkii inta baaristan gala kolba dad ajnabi iyo Soomaali way galayaan baaristan qofkii inta baara keena inay arintan nimanka shabaabka leeyahay mahad karatay groupkiisa ay ku lug lahaayeen qofkaas waa qofiga aqoon badan oo anigu wax ma aqaano wax ay ciyaalina Soomaali soo dhoobeen ma waxa dhacay waxa weeye waxay dawladda shisheeye ku lug leeyahay waxa dhacay waxa weeye wax laga soo shaqeeyay muddo weeye baawurkan afgooya la geeyay inta xog ku hayno anagu indhahana ma leeyin dhigahana ma leeyin ninka gaariga wadana nin la yaqaan weeye oo nin markii la istaajiyay dhowr checkpoint lagu istaajiyay la sheekaystay la aqooday meesha ku soo jeedo la yaqaano ciido markaas xirka la og yahay way inaan mar raba aan xoog u dhex galo oo aan dadka baarista wada aan carqaladeey mar rabo laakiin baawurka halkaas la geeyay baawurka qaraxidii iyo shidaal waxa lagu fuustay shidaal lagu soo raray intee checkpoint soo mara gaariga marka waxa weeye baawurka horta xogtiisa sida weeye oo ruudkiisa Muqdisho meel kale Yurub kamida kadib Talyaaniga France ninka Sheekh Xasan lilaahdo reew Xasan marka hadda xaruntiisa Ilays meel oo shirkadu lahaa oo xawaaladaha ayuu lahaa magaca Ilays u furaa
iminka dowladda Talyaaniga way xirtay 7 maalmood gudahoodna maxkamadda la saarayaa raadraaca kiiska halkaas Talyaanigu ka soo bilaabanaya marka horta kadib burjumku imaanaya yaa garoonka yaa dekada burjumka ka dhoofiyay baabuurtan kadib wuxuu tagayaa xamar halhaladii loo qaatay yaa qaatay inta qof oo qaatay meeqay ahaayeen أنا هذا حق وحن كويلة يا أفري هاي باور تهدل صوري سدح كلا تعالى ولي مركا هاوي شباب أيام كاش يكيني شباب وحي هايين شباب بي هايين أرجع حسي هايين لكن شباب إمكا والله بقيب وي شباب كلين شيء قيب وقيب تا على يو مهتكاتاي iyo Axmed Diirininki mataqaana la lahaa iyo groupka weey qaybna waxa weey waa qaybtan ninkan mataqaana laga dhigay agaasimaha sirdoonka qaranka Soomaaliya Maryaxaan Sakariye Xirsi iyo ninkan raxaweyn Leesaan Muqtaar Roobow oo asagana ahaa ku xigeenkii amiir ku xigeenkii al-shabaab ahaa weey qaybna marka سؤال waxay tahay Sakariye Xirsi shalay wuxuu ahaa taliyaha amniyaadka al-shabaab mataqaan amniyaadka al-shabaab waxa weeye qarax kasto dhaca cid geysata qof kasto la dilo qof ka disha waa kuwa dilka oo weerar kale amniyaadka weeye kuwa qaraxda dhigay amniyaadka weeye kuwa technicianka farsamay amniyaadka weeye kuwa xooraanka ee xogta soo aruurinaya waa amniyaadka weeye waxa la isku leeyahay amniyaad marka ninka Maryaxaan wuxuu ahaa taliyihii amniyaadka al-shabaab BBC inta warbaahinta soo la hadlay meel kasta ka daawo kartaa wax qarsoon ma ah TV-da uu qartay website si ayada ka arkartaan inuu ahaa lacag badan $1 milyan oo madaxiisa taalay waad Google garay kartaa Sakariye Xirsi ninkii shalay ay madaxiisa saareed intaas oo milyan ee blacklist ku jira Mareykanka ninkii shalay weerarkii lagu hoobtay ee kan oo kala ahaa ee hotel Sham oo aqoon-yahanadii ardayda lagu dhameeyay soo abaabulay ninkii weerarkii lagu hoobtay ee hargaha iyo saamaha soo abaabulay ninkii weerarkii lagu hoobtay ee mataqaana Umar Xaashi iyo laqayn iyo lagu dilo soo abaabulay ee amniyaadka haystay ninkii shalay tiyaatarka weerarkii Cabdiweli Gaasi oo qudbaynay la eegtay ogeedeen wuxuu ka dhacay tiyaatarka ay dad badan wada aqoon-yahan looga dhinteen soo abaabulay ninkii inta soo boqol oo generaalo iyo korneelo iyo wax walba leh iyo wariyaal dilay yaa soo waday horta haddii la soo wado la keenay yaa xilka u magacaabay baarista halka ugu wanaagsan halka ugu yortay inoo la fiiriyaa yaa soo waday ninkaas Sakariye yaase xilka agaasimaha sirdoonka qaranka in qofka noocaas ahaa ee dambiga inta la gaaray isagoo wali hadlin shacabka la hadlin u faahfaahin qadiyadiisii yaa weeye qofka ka dhigay agaasimaha sirdoonka qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma ka dhigay ma Fahad Yaasiin ka dhigay ma Xasan Cali Khayra ka dhigay ma Sambalool Shaa ka dhigay horta yaa ka dhigay hoos ma la soo weydiiyay okay waxa weeye ninka adarka Sakariye dawlad sheeyo ajnabiga ayaa tiri hala soo qaxayo marka hore uu shaqeynay dawladdaas ayaa keentay Fahad Yaasiin gacanta ka saartay Fahad Yaasiin iyo Xasan Cali Khayre iyo Cabdirasaaq Shoole weeye nimanka halka Farmaajo u geeyo oo yiri agaasimaha sirdoonka qaranka laga dhigay ninkan simple way adi soma aniga aragtida dawladdaas weeye iyo kooxdaas groupkaas weeye waxa arintaas qaraxa dhacay abaabulaya waxa dhacay alla ama kaagteen 300 intaas qof ku dhimatay 300 intaas kalena ku dhaawacantay ama 400 intaas ku dhaawacantay wax ka sii daranna way ku fikirayaan way soo wadaan wax ka daran ay ku fikirayaan ay soo wada qofkii been rabto waa ayada
qofkii rabto qofkii xanuun ku hay dadka dhintay saanu kulba waa dadkii ehelkayga way inta dhimata markii laga fiiriso 200 iyo dhowr qof waa dadkii ehelkayga ahaa mid abtii ah mid adeeri ah mid dhashay mid walaalkay dhalay iyo mid walaashay dhashay ya way waxa dhinto meesha ku dhinto waa dad saas wada mid ayeeday dhashay mid ayeeday reewgiga waa un dad saas isku laaba 200 iyo dhowr qof oo kamid ah marka qofku xanuun ku hayno wuu iska caytami karaa wuxuu rabo dhigi karaa qof iska daacadnimo iyo siraan ku necb anigu dhageysama warkiisa marka waxa weeye arinku sidaa way waxa wax ka darna way soo socdaan haddaba muxuu ahaa ujeedka laga lahaa qarax waxa weeye maskax yar oo maskax shabaab oo iyo maskax ISIS iyo maskax kale ama farsamo ISIS iyo farsamo al-qaa'ida ma sameey karaan qofka doontaan u sheega meesha maraykanka hala keeno Israa'iil hala keeno kulli cid kasta hala kaashado qaraxaas ma sameey kara cunug yar oo Soomaali ma sameey karo marka waxaan wax laga soo shaqeeyay way dawladda shisheeye ay ku jiraan dad qobolaa ay ka shaqeeyeen explosive ka ama qaraxa ilaa inta gooyay inta fuustooyinka lagu rakibay jahad kasta soo maray gubay si qof uga badbaadin baabuur aysan hay'adaha ammaanka ogeyna ruudka inta la soo mari karo marka arrimo badan saaran waxay ahayd tobanka bisha waxa ku ekaa maalintii qalbi dhagax kiiskiisii guddiga loo xisaar loo qabtay soo gudbiyaan arinta labaad waxa weeye arintii xiisada dhalisay ee maamul goboleedyada oo xildhibaanadii maamul goboleedyada matalayay ama senator ahaado ama xildhibaan ahaado iyo odayaashii qabiiladu iyo siyaasiyiintooda intuba ay shirar isdaba jooga wadeen oo attention halka ku jeedo arin saddexaad waxa weeye xiisada galmudug ka taagneed oo odayaashii qabiilkaas iyo xildhibaanadoodu hotel safari ku shirayeen arrimahaas kaashada oo taagnaa oo political crisis ka taagnaa si loo wiiqo loo mataqaana loo burburiyo dadka shoog loogu rido ayaa weerarka u dhacay haddii la soo baaro kiiska waa inta aniga qabo inaan qalad galno waa laga yaabaa qof bini aadan ah laakiin marka ilaa xalay ilaa shalay shaqeynayay maxkamad talyaaniga loo sheegi doontaa baaristi kolba afar kale nimanna waa la hayaa ninka reew xasanna waa la hayaa maxkamad talyaaniga waa sugaynaa iyo booliiska talyaaniga hay'adaha ammaanka way soo saari doonaan wax qarsoomi doona ma aha website leeyin waa la soo geli doonaa wixii la arkay laakiin waxa idin sheegayaa waxa weeye Soomaali waa lagu loolamayaa Soomaali waxa ku loolamay dawladda shisheeye isku haya dawladda isku haya darteed waxa dhici doona waxyaabo xun ayaa dhici doona waxyaabo xun ayaa dhici doona sida ogtihiin inta badan maamul goboleedyadu waxay la safteen inta badan maamul goboleedyadii waxay la safteen imaaraadka Sacuudiga inkastoo kuwa ay kuwa ugu dulisan ugu xun Soomaali nacaybka oo maanta waa arkaysiin walaalaheena Turkiga in diyaarad geeyeen wasiirka caafimaadka booqday ma aragteen imaaraad wax ku deeqay ma aragteen Sacuudiga wax ku deeqay ma aragteen wax dan kale ma aragteen haddana maamul goboleedyadu waxa la arkay in ay la safan yihiin imaaraadka Sacuudiga oo qadar ay go'doominayaan laakiin dad baa ugu sii daran oo qadiyadii galmudug fashiliyay oo dhabarka u ritay dadka awood dadka bartilmaameedka dadka in cabsi lagu rido in la laayo waa qadiyad siyaasadeed weey waxa weeye ninka ra'iisul wasaaraha ninka Xasan Cali Khayre xaq uu fiirnayaa garabkaas abgaal yaa ku haysta kursiga abgaal yaa kursiga ku haysta habargeer horena waxaan ku sheegay daxstaan video qorshihii ahaa in la kala hormariyo qabiiladan siyaasiyiintooda habargeer iyo abgaal in la kala hormariyo daxsataan iyadoo video isto ka baara kartaa marka waxa lagu heshiiyay daxsataan habargeer marka hore guddiga loo magacaabay say ee daxsanina dibaan idin xasuunayaa ana idin soo saaraya mar labaad ayaan link idin soo gelinaya saad u fahamtaan dagar socod arrintaana waxay ahayd halka waxa la doonayay xildhibaanada habargedir iyo odayaashooda in lagu baabi'iyo sidii berigii Mareykanka kale u duqeeyo kale in dhulka la gooyo
إن أرميه قلبي ده يحلقوا قريه إن حسد معمول قولنا أيام الله جنس تلقوا قريه سيدا سياهي مسكحنا ما يهين مسكح صومالي كلي سودك تدولش شيء يقولوا لها حكت أنا هي تاوي وحيابها كان يدعوها كمذا إن دت كانت بدأ أن لوربين وقف كستو أكور ما يسكره هبيك واحد كان لوجر مذو وأعرف يعني لكن ودون كلا جحت هل وضع قف ديجو شوية أمره مسمى هاي ودون كون بحرة دت كان لوجر مذا ليري حتى ودون كلا حرة مركز دت كديك بحي دت كقوليها كوسو دومين كوستري دت كدبك هيستي بابور كاسكو قف أويا قايلنا هوتيل سفاري كدحق أويا يا سابر نورلوغي وكي بهون حريستي سو غوبنا يو قايليس لا مقلا يا باور دبدمسك هلو واي قف ku jira ay meel kale ku mashquulsan yihiin marka arinta jirta taaswi waxa rabtiin soo maaha inaad ogaataan siday arinta hadana ahayd guddiga baaristan ka warsugaynaa ninka baabuurka waday baabuurkiyo sawiran wixii waa la helaa inta jagboonjo soo maray taliyaashiya joogo arinta kale waxa weeye oo in laga hadlo mudan wiilayga walaashay dhashay batuulo sheekh Axmed Gaballe la dilay taliyaashii xilka looga qaaday kuwana waa la xirxiray waa sax talaabo fiican bay ahayd intii hore soo dhibska dhaaf 300 intaasoo qof oo dhimatay 400 intaasoo qof oo dhaawacantay oo ilmuhu gogo'een oo aan la aqoonin qaarkood meedkii la isku haysta kanaan ani meedkii way la aqoon way gubtay ma maqasheen qof xilka looga qaaday ma maqasheen qof loo xiray ma maqasheen ma jirto لأنه وحال أجي هاي وحال لا هاي دتك الصومالي واحد وحاول مني الصومالي فاهم سينا مركب وحاول من سحوية والشيء كوس الدجاجان وليبه دتك الريمو سجارهان وحال لا دتك كان لبط ضبادي أوينيا الصومالي ويقيرون يعني كدب لو أسكي إلا باين أنت أصاب بقول وقف ولا قد لي أنت أصاب بقول ولا قد أسكي إلا باين مركادوي إذا كوسوا نيردان هلا يا ونينا كانوا قدام بيسين الشيء وحوي محمد عبد الله فرماج مسحس على غير ويقول أرنيا أرجع سكر يا كهالسين مالك حارس بدم بيك وحريه فهد ياسين يحس على غير رئيس الوزراء فهد رئيس الوزراء تابد عبد النكر الدقة مقالة الله مقعاوي ninkii agaasima ku xigeenka madaxtooyada ah absaaq soo la yiraahdo meel ka halis badan shabaabka iyo iiska ashaysiin ay ku xiran yihiin taasna haddaad ogaanaysaan qof kasta oo muuse joogo siyaasi ama xildhibaana ama sargaas doon ka tirsan ama amniga ka tirsan ah kaliya ha soo ogaado magaca shirkadda security company ah ee uu sameystay Fahad Yaasiin ha soo ogaado qof kasta oo Soomaaliya ha soo ogaado kaliya 2000 ee qadar loo qaadayo ee dhalin Soomaaliyeed ee hal qof ogeyn waxa loo qaadayo Fahad Yaasiin oo qortay ee min $200 laga qaaday ee aan loo sheegin waxa loo wado halka loo wado 3 bilood waxa la qaadaya 200 oo wiil la qaadaya qof kasta oo Soomaaliya ha soo ogaado kaliya لا بقول ويل قاضي محي سو قبريان محال سو بريا محي صدل كل سو لابنيان لaba kun oo inta qadar la geeyay wixii shaqadoodii la soo baray iyo wixii rabeen lagu soo tababaray oo dalkaas ku soo laabanay maxay ku horseedi karaan ama maamul goboleed ahaw ama oda dhaqameed ahaw hadaa damiir leedahay qof Soomaali tahay hadaa tahay nin qabiilkiisa matala oo wax garta waxaad hoos u eegtaa Sakariye Xirsi ninkii shabaabka ah shal la dhameeyay yaa agaasimaha sirdoonka qaranka ka dhigay yaa keensada meeshan baarlamaan daata gudoomiye baarlamaan tahay ama xildhibaan tahay bal isweydii kaliya inta hadaa oda dhaqameed ama ganacsata isweydii kaliya hadaa wax garato baarlamaan tahay ama qof matasho ama aqal sare joog ama aqal hoos joog ama oda dhaqameed ahaa ama nin siyaasi ahaa ama wasiir ahaa
shirkaddan oo Fahad Yaasiin samaystay dhalinyaradan immigration ka safka ugu jiray ee baasaboorada loo jaray maalin walba 200 qof dhalinyarada ah xagee loo wadaa maxay soo qabanayaan baarlamaanka ma looga yeeray ninka shirkadda iskale ma la yiri dhalinyarada aan wada xagaad u wadaa maxay dalka qadar ku soo baranayaan wallahi inay soo ogeeyeen wallahi kubaan la hadlay dhalinyaro ama dad dibadda iga soo wacay waxay ku leeyihiin waxbarashaan loo wada leeyahay de waxbarashadu maxay tahay lagu wado ya marka ani waxaas leeyahay 300 iyo intaas dhimatay wax ka xuna soo socdo haddaana ma shacabka inta ka aan iska celin indhahooda furin arintaan baaristeedu way adkaanaysaa sidii qalbi dhagax arintiisa loo maldahay oo loo laalaabay oo hadda arkan u socoto kale u soconaysa wax ka soo naasa cadaha ay habeeratay ma jiraan haday laba qof ajnabi ku dhiman lahayd kiiskaasi meel xun buu lugta gelin lahaa laakiin hadda sida muuqata haddaana baarlamaanka inta kaco dadka shacabka kacaan wax garadka kacaan haddaana laga dhiidhin maya كان واحد كبلان قاضية هدانا ديمان أون ميت كعفية لديهن إنا إنتوسي محكمة الياري قف كل يوم محكمة دي دت كل يوم محكمة دي لينك جواب سيد كاس قوانك محكمة كجارتي وحي لوجو حكومي شركة دي سكو بيجي دي وحي يسوي كيس أنا كيانو ما كمان دقنا إنا نلت كاس عدين بيقولوا لي ده حلقة يا بكرة عستيني بساقط رأسناي لكن حل لي باور كم حط أسوق رشان أفر فرتين هذا كده برجم كله في باورتان سؤال تاسوي هذا أوقات هنا الدنبي هاي باور كأن لدو في سما لدو في ما حد يقول لي هتلاقي عن تاس واش تاسوه مركا قولي يا جبا حالي وأوجا هاي على دايرة حالنا نقول الجريشيس إن الشيطان قرح الشباب لكن واديدين الشيطان قرح هذاك أبي هو اللي هي ولا يقانا لكن ونصيب دردا عينه ضاونا مالك استأن مرقاتية كنا هاي إن dadku dilay uu laayay dhaawacood inta soo qaasbitaal keeno kadibna uu dhiig u shubo oo isku sawiro waxa weeye waxa dhacay nasiib darada waxa kala dhacay dadkii meydkooda xitaa in la aasin oo la duugi waayay marka maalintii ka caday ayaad ogaatay yaa ku walaalahay ku walaalahayn dawladda Turkiga iyo madaxweynaha Turkiga inta waxaan leenahay ma hastanadiin shacabka Soomaaliyeed waa u soo gurmateen wayna arkeen reer Muqdisho waliba gaar ahaan dadkii dhintay eheladii qoyskoodii abaal bay idin hayaan hiil baad noo muujisan anagu ma arag qadar waxna siisa Sacuudi waxna siiya ma arag Sacuudi noo soo gurmada ma arag Imaaraad noo soo gurmada ma arag waxaan u haysanaa uun kuwa dhibkeena ka talnaa inay yihiin waa daahir cala soo la dabaysha geedaha uma ruxdo inay ciyaarsiiso inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inta dhimatay baha u naxariisto inta dhaawacana caafimaad degdega ayaan rabbi uga toogayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh